wadamada batroolka leh waxaan aragnaa inay qani yihiin inay maaragtay ilaahay qani ka dhigay inuu maaragtay shicibkooduna maaragtay alxamdulilah xaaladooda ay aada u wanaagsan tahay waddan ahaanna inuu maaragtay aada u horumarsan yihiin isla markaa haddana waxaa jira shicib gaajaysan oo batroolna la waddankiisa sida nigeria oo kale matalan waa corruptionka ayaa ku fara batay waxaanu leenahay annaga aan haysanaa 170 ceel badankooda ay muuqdaan qaarna badda ay yihiin badankooda saberiga uu yahay dhulka uu yahay gaas dabiici ayaan haysanaa iska soo burqamaya iska maaragtay furmaya hadalkan waxaan u jeedinayaa dhalinyarada the new generation waxaan idin xusuusinayaa oo mar walba aan idin xusuusinayaa inaad ogaataan inaynu nahay waddanka adduunka ugu qanisan hal ceel oo ka mid ah ceelashanada batroolka haddii la furo maxaa imaan kara consequenceska advantage iyo disadvantage maxaa faa'iida ah maxaa faa'iida darro ah faa'iida darrada aan ka bilowno faa'iida darrada waxay tahay niman la yidhaahdo OPEC iyo nimanka batroolka soo saara waxaa ku dhacaya khasaare ayaa ku dhacaya collapse ayaa ku dhacaya waa c'est la vérité waa dhulka ayay galayaan qiimahooda ayaa hoos u dhacaya si aynu u dhicin taas dhibaatooyin ayaana laga daba waday annaga qarax xusuuq al-shabaab balaayo kale waxbaa nalagu mashquuliyey si aan anaga aan ugu soo jeesanin barwaaqadii dalkeena si aan ugu soo jeesanin dhalinyaradii wax baratay si ay maaragtay waddanka uga haadaan ee uga tagaan ka haajiraan oo meelo kale oo maaragtay lagu bahdilo haddii dhalinyaradan hurdada ay ka kacaan ee arkaan inaanu leenahay barwaaqadaan leenahay war heede waxa weeye waxaan u malaynayaa shaksiga soomaaliga inuu maaragtay 200 maaragtay qafood ama 200 ruux ama 200 shaqaale inuu keensan karo oo wakiil ka noqon karo sida carabta ay iminka samayso sida sacuudiga iminka uu sameeyo imaaraadka sidii ay sameeyaan war waddankan annagaa iskale kan shidaalka annagana annaga ayaa iskale shidaalka marka hadda sidaan loo sharciyey loo ansixiyey maya ceelasha waa diyaar waxaa ku wada qoran afkooda 710 ayaa lagu wada qoray waxaa ku qoray shirkadihii maraykanka ee baari jiray shidaalka baari jiray markay soo baareen ay soo saareen oo ay arkeen shidaalkan soo bixin kaliya inuu u baahan yahay ceelkii waxay sameeyeen ceel waliba sibir ama shamiinto ay ku dabooleen ay afka uga oodeen ma garatay afka dushiisa ceelka waxaa lagu qoray 710 baal GPS na ugu jiraa ma naqaan meel ugu jira ma naqaan hal ceel kaliya maaha laba maaha waa 170 iyo wax ka badan weliba 710 waxaa loola jeedaa oil sababtoo ah 710 markaa qortid 710 oo dhinacaas ka soo istaagtid waxay noqonaysaa OIL ayay noqonaysaa waa oil waa shidaal marka shidaalkan 710 lagu calaamadeeyey waa dhowr ceel waa shabeellaha hoose kaliya meeqaa ku taal ma garanaysaa jubbada hoose kaliya meeqaa ku taal ma garanaysaa waqooyi galbeed ka soo bilow looyacadda ka soo bilow zaylac imow meesha la yidhaahdo bangeeriyaad waxaa la yidhahdaa zaylac ayay maaragtay u dhowdahay waa ban aada u weyn oo marka hore dix maraa biyaha iska ahaan jireen bangeeriyaad waxaa loogu bixiyey masas badan ayuu leeyahay abeesooyin fara badan ayuu leeyahay lugta meeshaa lugta dhigtid abeesa kasii hoos bahaysa ayaa loogu bixiyey waxay ugu jeedeen si ayagana u aqoonsadaan dad kalena aysan u aqoonsanin weliba waxay sameeyeen dhir bay ku beereen ceel walba dhir baa lagu beeray dhirta waxaa looga beeray dhinacii kale marka la soo istaagay la arki lahaa oil la arki lahaa ayaa looga beeray si aan dhinacan dhirta dhir baa ku taalla sidee loo galaa lama geli karo halkaan uu qofka istaagaya 710 unbuu arkayaa laakiin markaad dhirta aad tagtid meelaha qaar dhirtii
qolooyinka dhulka xaalufiyey ee dhuxusha raadinayay ayaaba ka jarteen meelaha qaarkood ma garatay banaanka ayay soo baxday marka oilkii waxaa dhacday talyaaniga xilligiisii isticmaalkii talyaaniga wuxuu ogaaday meeshan yar ee la yidhaahdo weliyo cadde ama sayidka loo yaqaano inay maaragtay nimcooyin yaalaan oo shidaalka ka mid yahay shidaalka weliba oo eriyadaas oo dhan ka buuxo dhowr ceel ay yihiin wuxuu sameeyey qubuuro ka dhigay ilan isticmaalka isagaa haystay waddankii qubuuraha talyaaniga ayaa loo bixiyey qubuuro kale ayaa jiray oo ayagana ceel ahayd dhowr ceel ku yaalaan meesha loo yaqaano ceel hindi oo hadda hormuud ay haysato oo biyaha ka sabalay garayso dhowr ceel shidaal ayaa ku jira tanna aan soo noqono qubuuraha talyaaniga markuu samaystay hindidii beledka joogtayna qubuuraha hindiga ayay dhaheen qubuuro ayay ka dhigeen halkaas hurdada ka toos dhalinyaroy toos hurdada ka toos waxa aan ku sheegaya waa wax proof wata caddeyn waa tegaysaa ciidda keliya laa feeri keliya ciidda markaa sidaa tiraahd ee aada ursatid sug weli ma dhamaynin tii qubuurihii talyaaniga dowladdii raydka ahayd waa la afgambiyey dowlad military ayaa timid waxaa amar lagu sii dowladdii militariga ahaa waxay maaragtay fargelintii sacuudigan horey ka bilaabatay masaajidkan ugu weyn africa kaaga dhisaa waa wax wanaagsan cidna ma diidi karto laakiin meel kale nooga dhisay ahayd in la yidhaahdo way dhici weyday soo maha waxaan la xalin karin ma leh wax aan la xalin karin ma jirto kaftarno niman reer koofura waxay yidhahdaan mudul iyo ninkii dhisay yaa weyn ninkii dhisay yaa weyn mudulka meel kale waa lagu dhisi karaa shidaalka ku jira xaafadahaas markaad tagtid ereyada oto ama xaafadda loo yaqaano hanti wadaag ee buulo elay la yidhaahdo muqdisho buulo elay dhulka haddaad fiirisid waxbaa aroortii hore markaad soo kalahdid waxbaa kasoo fiisha dhulka xaafadahaas oo dhan